guursanayso haddaaba ilma dhalayso haddaaba waalid noqonayso waa inaa aqoontaan leedahay waa khasab waa daruuro wey waa muhim waa cibaado taa horta waa in waalidku uu fahmo sideedana bulsho inay hagaagto oo bulsho wanaagsan noqoto oo ummad wanaagsan noqoto waxa aasaas u ah in qoysku hagaago in qoysku hagaagana waxa aasaas u ah tarbiyadda ilmuhu inay hagaagto haddii qoyska tarbiyadiisu hagaagto ama hooyada iyo aabbuhu ay bartaan qaabka ilmaha loo tarbiyadeeyo waxay khabiir ku noqonayaan oo aqoon u yeelanayaan dadku wuxuu yahay waayo aasaaskii dadkaa baratay meeshii dadku ka soo aasaasmayey yaad baratay haddaad aasaaska dadka taqaano iyo qaabka dadka loo tarbiyadeeyana waxa kuu fududaanaysa qaabka dadka loola dhaqmo tarbiyadda carruurta qofka barta qofka weyn uu la tacaamulayo waxa ka khaldamay qofkaas iyo meesha wax kaga khaldameenba horuu ka garanaya sidaa aawadeed qofka mabuu sii dhibsanaya mana sii dabagelayo sidaa aawadeed marka barashada tarbiyadda carruurtu sidoo kaleeto waxay muhiim u tahay qoyska dhan wada jirkiisa hooyooyin badan oo gruubka ku jira oo gaar iila soo xiriiray waxay ii sheegeen nimankoodu inay aad ula yaabeen isbeddelka hooyada ku dhacay hooyadu markay tarbiyaddii baratay iyo qaabkay u dhaqmaysay waxay baratay sidoo kaleeto nafteeda markay baratayna waxay baratay ninkeeda waxay aragtay ninkeeda waxa ka khaldan meeshay ka soo khaldameen hooyooyinka qaarkood waxay ku leeyihiin agoonnimuu ku soo koray hooyadiis iyo aabbihiis baa isagoo yaryar kala tegey waa nin neerfisa waa nin dhib badan waa nin carruurnimadiisii dhibaato loo soo geystay qofka markaad og tahay cilladdu meeshay uga timi inayan kibir ahayn baa ogaanaysaa uu isagu dhibban yahay waa warayay leeyahay markaasaa waxa ku dadaalaysaa hooyadu ku dadaalaysaa siday ilmaha u caawinaysa inay ninkana u caawiso arrintaasi marka waxay keenaysaa qoyska hooyada ama aabbuhu uu tarbiyadda yaqaaniin burburka qoyska iyo furriinku waa ay yar yihiin waa ku yaraanayaan innaga hadda hooyooyinkeenna halka ku jirta iyo aniga iyo xoogaaga ragga aabbayaasha ah oo meesha ku jira waa ogtihiin dhibaatada ina haysato ugu weyna waxay tahay aabbayaashiisaan wax ku fahamsiin lahayn dhibaatadu marka xaggee ka imaanaysaa aabbuhu inuusu tarbiyada fahmin waxay ka imaanaysaa kow isagaa tarbiyad xun soo qaatay sayn inagu u soo qaadanay oo dhib la soo kulmay number 2 hooyada Soomaalidu kuma dadaasho nin kasta ilmaha u bari lahayd ilma iyada xisbajisa waa wax lagu tarbiyadeeyay waxa laynoogu dhaadhiciyay hooya ilma soo saarta hooya ilma korisa hooyada shaqadeeda weey aabbaha shaqo u taalama baa laynaga dhaadhiciyay sidaa aawadeed ilmaha iyo aabbihiisba way kala dhex galaysaa waxay ku dadaalaysaa ilmuhu inay iyada hoosteeda soo galaan oo iyadoo 24 saac ay ku mashquulsho isaguna taasuu u bartay hadduu ilmaha dabdarro ku arko hooyadu ku xanaananaya wuxuu leeyahay waxaan adaan tarbiyadayn laakiin tarbiyadda sida saxda ah oo diiniga ah waa shaqo aabbuhu leeyahay ka hadli mayno cunto karinta iyo uqubaynta iyo ma garanaysaa xafaayadka beddelka iyo naas dhigga iyo waxyaabaha daruuriyaadka ah oo dhanka hooyada ku xiran oo alle uu qadaray inuu hooyo ku xiro waayo caloosheeduba gelaya oo 9 bilood inuu ku jiraya laakiin tarbiyadda ilmaha caqliga dhiskiisa ah iyo soo saaristiisa u sheekayntiisa luqad baristiisa kulli waa shaqo aabe kulli waa shaqo aabe 100 jeer baan idin sheegay daliil kale idin sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu xooga saari jiray ku dadaali jiray rag guriga haddii aabbuhu uu hagaago hooyaduna waa hagaagaysaa ilmuhuna waa hagaagaya aabbuhu hadduu doorkiisa qaato hadduu guriga aabbuhu khariban yahayna guriga dhan waa isla kharib maaya waxa weeye ilaahay wuu simay yaanan oranin labada way sinaanta aniga ma aaminsani in nin iyo naag siman yihiin ma aaminsani in laba naagood siman yihiinna ma aaminsani in laba nin siman yihiinna ma aaminsani waayo quraanka ku sheegayo fadalna ba'dakum ala ba'd intee jeer quraanka ku soo noqotay hadaad geliso
labaatan soddon wax ka badan baad ka helaysaa wafadalnaa bacdakum calaa bacd oo macnaheedu yahay dheeraad baan idinkala siinay waxbaa la isdheeriyahay dadku isku mid maaha adiga hooyadaa ma sinidin marka sinaanta saasaan anagu aaminsanayn laakiin cadaalad baa jirta cadaaladdaa lagu khaldaa sinaanta waa wax la sameeyey waa wax oo westernka iyo waddankii sovietku ay sameeyeen equity soomaaliyana waa wax hadda aad u haysta oo aadna looga yaqiiqsado waayo sinaan macnaheedu waxa weeye wax siman oo isku jaran oo isku mida oo dhan walba iskaga mida weeye suurtagalna maaha waa la kala lacag badan yahay waa la kala aqoon badan yahay waa la kala dheer yahay waa la kala gaaban yahay ma garanaysaa dhan walba baa loo kala duwan yahay farahaagu xataa ma sinna ilaahay ma simin marka waxaa la rabaa marka cadaaladdu laakiin iyadu waa wax jira in wax kasta loo cadaalad sameeyo kulli cadaaladda waa laga siman yahay ilaahay marka ragga iyo dumarka labadaba waa cadaalad sameeyey wuxuuna ka dhigay kuwa cadaaladda u siman intaa markuu sameeyey alleh ayuu wuxuu siiyey ragga hal darajo bes inay dheeryihiin darajo keliya inay dheeryihiin dumarka hal darajo buu siiyey waayo wuxuu hadduu isku mid noqdo balansigu sibuu u dhumaaya waa in cid hoggaanka ay qabato darajada uu siiyey marka waa darajada qawaamada hooyo kasta oo dunida joogta gaal ha ahaato muslin ha ahaato buudha ha ahaato dabcaabud ha ahaato hadday ninkeeda qawaamo ka weydo qawaama hadday ka weydo waa nacaysaa gurigeeda ka saaraysa mana dareemayso security amni ninka hadday qawaamo ka weydo hooyadu gurigaas waa burburay waa ku daayay hadday ka dareento darajadaa inuusan lahayn waa khalaas qawaamada marka qur-aanku waa noo sheegay say ku timi darajadan dheeraadka ah oo ragga alla siiyey ma aha darajo abadiye ah oo ninku iska wato title iska wato maaha waa title shuruudo ku xiran mawduucii waa ka baxnay waa u soo noqon doonaa laakiin waxyaabaha waa muhiim in la fahmo darajadan qawaamada ah ilaahay aayadda uu leeyahay الرجال قوامون على النساء على ودش dumarka marka la eego raggu waxay dheer yihiin oo leeyihiin qawaama waxa weeye hoggaan weeye hoggaanku ma aha keligitalis hooyada Soomaalidu markay maqasho ninku hoggaanku leeyahay waxay u fahmaysaa inuu isagu dictatorship yahay maadaama aynu ka soo jeedno asalkeena bulsho ka soo jeeda ama lagu soo rabeeyay keligitalinimo nahay 20 sano ayaa dawlad keligitalis Soomaaliya haysatay production ka soo baxay dadka soo baxay waxay ahaayeen keligitalis wadaadadu waa keligitaliyayaal mu'addanada masaajidku waa keligitaliyayaal qof kasta oo Soomaaliya sifooyinka keligitaliska oo fircawn baa keligitaliya ahaa laga waayi maayo ana buu ku leeyahay macnaha inuu isagu talada leeyahay maroorsaday keligitalis macnaheedu waxa weeye ama dictatorship waa yeeriye waxbuu soo jeedin oo yeerinaya hadal lagama daba dhihi karo waa in madaxa la laadiyo wixii la qaato qawaamadu sidaa maaha qawaamadu waa tii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeye talad qoyska dhex taal ayuu ninku wuxuu leeyahay go'aankeeda taladu waxay ka imaan kartaa caruurta cajladaha YouTube-ka ku jira waxa kamid ah cajladaan kaga hadlayno shir qoyska ah oo toddobaadla in la qabto 10 sano u horeeya caruurta haddii shirka la qabto iyo xataa markay waaweynadaan joogto loo wado fawaa'id badan buu leeyahay shirka aragtiya la isdhaafsanaya ilmuhu xataa aragtiyu soo jeedinaya qawaamadu marka waxa weeye tala marka ay hooyadu soo jeediso tan aabaha ka fiican aabuhu wuxuu guddoonsanayaa oo qoyska dhami qaadanaya talada hooyada masalan reerkaa rabay inuu guuro magaalo u guuro guri bay xulanayaan gurigii bay aragtay hooyadu markii arrintii laga tashaday waxay leedahay gurigan uma fiicna caruurta deyrkiisu shamiito ma leh waa guri ciida dhagax buu leeyahay ilmaha in wax soo gaaraan baa dhici karta oo lagu kufo guri waxaan u baahannahay deyrkiisa shamiito iyo mutureel la saaray inaan kiraysano aabuu sabcan wadaahanay tala fiican bay keentay wuu qaadanaya marka qawaamadii wataa qaadashada taladii dadka dhan bay u dhaxaysaa dictating maaha yeerin maaha martan hooyadaa la qaadan mar ilmaa aniga waxaan xasuustaa waqti aan ilmo gabar yaroo waxay jirtay 7 sano aan tala qoyska u soo jeedisay aan qaadanay baan xasuustaa ilmaha mar baa taladiisa la qaadanaya taladiisu wanaagsan tahay sidoo kale ilmuhu wuxuu ku baranayaa inuu tala keeno inuu wada tashi ka qayb qaadan karo washaawirhum fil amri wa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku degaya amarka kala tashaa la yiri saxaabada oo kala taso markaas alla ku awaan wuxuu leeyahay wa amruhum baynahum shura taladu dhexdooda
waa wada tashi dadka muslimka ah marka qawaamada horta ninku uu darajad halka darajuu dheer yahay waa taa go'aanka dubahan maxkamadaha soo maarag uu xaakimku miiska ku dhufto oo kale wey bes waa la isku waafaqay buu leeyahay kelimaddaa u dambaysa un buu leeyahay laakiin taladu khasab maaha inay isaa ka timaado in isagu mar walba talinaya maaha hooyadu waa talin kartaa talada waa soo jeedin kartaa taa markaan intaa kaga gudbo caawa mawduuceenan aan cilada jara horta inta ayaa su'aal ka qaba